السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنطاو ديال ما أنت بنشين حنكون سقان دونا سياسة سامين تكوي راتي وده دقمت كي سوماليات يبرشدي وكلا ساريا سياسية وده دقمت كي سنة هندمبي ودمبنتينا حنكون جمين دونا سيدا كلا سامين تكوي سياشين برشدي يدايرتي أقوين يهدي كلا برشدي العيد. طبعاً مشتاق سومالي تيفي خلاص ولا مدحنو دخلتها arrimaha bulshada iyo xaalad kasta oo markaa taagan fadlan si aad barnaamijyada la socotid xukumo oo ku xidhnow laguna soo dir haddaadan nala joogin qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aan ku leenahay mahadsan. ugu horeyn madax dhaqameedku waa maamul wanaagsan oo Soomaalidu leedahay waana wax dantu keentay maadaama dowladnimadeenu daayar tahay waa maamul ku dhisan wada tashi iyo kala dambeyn badanaa waa la iska dhaxlaa haddii aan baahida markaa keenin in laga leexiyo ciddii dhaxli lahayd wuxuuna ku kala duwan yahay awoodda iyo magaca. gobollada Soomaalidu magacyada waa ku kala duwan tahay sida garaad, islaam, suldaan, boqor, wabar iyo caaqil. madax dhaqameedku waa go'aansamaadka dowladnimada Soomaaliyeed waxaana khasab ah haddii madaxnimada Soomaalida aad doonaysid waa inaad iyaga soo martaa oo aad ogolaansho ka haysataa maadaama Soomaalidu dowladnimadeenu ku dhisan tahay habka beelaha awood qaysiga taas oo keentay inay siyaasadda gurracan ku milmaan oo ay u dhaqmaan sida siyaasiga waana halkaa meesha cirqu ka galay. dhanka kale madax dhaqameedku waxay ahaan jireen samatalis aayaha bulshada sama kaga taliya xaalad kasta oo la soo dirista. hogaamiyuhu waa daw inuu bulshada uu hogaamiyo nabad iyo colaad midun u hogaamiyo balse taa uu qaadanayo waa inuu ka baaraan degaa. badanaana madax dhaqameedkii hore ee Soomaaliyeed waxa uu dabacsanaa dhanka nabadda waana wax bulshadu u dooratay waana inuu ka aragti iyo waayo aragnimo dheer yahay sida magacyadooda ka muuqata laakiin maaha inuu wax kala saari waayo oo xaalku ka noqdo ciidid gar leh cana gar leh. ugu dambeyntii bulshadii oo kala saari la siyaasigii iyo madax dhaqameedkii sababtuna waa ku milanka siyaasadda. madax dhaqameedkuna waxay ahaayeen kuwa aan sida siyaasiga bulshada kala qoqobay ee kursigu u muuqdo baraha bulshada hadallada xanafta leh isku soo marin walow ay qaarkood ka badareen. ina ku sheego garad cali wuu maqnaan jiray baharsame uu ogtahay xataa waa arrin cad waxa gaariga u wadi jiray nin hadda caaqil ah oo nool baa garad cali gaariga u wadi jiray oo la yiraahdo cali maxamed kaashi waa caaqilka reer caduur. waxa lagu yimi garaadku markuu siyaasadii ingiriiska iyo meelaha ku maqnaa dhowr sano ilaa muddo sanad iyo bara islaantiisii oo foolanaysa ayuu yimi. dadna markii la ogaaday waxaa la ogaaday inay darawalkii oo caaqilka reer caduur hadda ay ilmo u shido dadna waa la isku qabsaday iyo dhalintii oo iyaguna labada u kala safan oo iyaguna sidoo kale baraha bulshada ku xiiqay la yaabna malaha oo waa geel duqdiisii dhababacaysay arrinkiisii maxaad ka malayn.